hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya oo soo saartay war-saxaafadeed ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in hogaamiyihii golaha koonfurta Yemen STC Ali Duruus Al-Zubaydi uu baxsaday dalka Imaaraadka Carabta uuna shalay ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport ee magaalada caasimadda ay Muqdisho isla markaana isku maray Muqdisho iyo Berbera. bayaan ka soo baxay hay'adda oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay baarayso wararka la xiriira in Ali Duruus uu u safray Soomaaliya una baxsaday Imaaraadka Carabta. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qaadayso tilaabo kasta oo ay ku ilaalinayso midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaa kaloo bayaanka dowladda lagu sheegay in Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin isticmaalka hawadeeda iyada oo aan loo haysan wax ogolaansho ah. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo goor sii horeysay oo maanta uu isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ee dalka Yemen bayaan uu soo saaray ugu hadlay daaqidii ugu dambeeyay ee hogaamiyaha golaha koonfurta dalka Yemen oo ay taageerayaan Imaaraadka Carabta kaasi oo Arbacadii baxsaday xilli laga sugayay inuu tago Riyaad oo Sacuudiga uu dhigay gogol ay ku wada hadlayaan dhinacyada koonfurta dalka Yemen. isbahaysiga ayaa bayaankiisa ku sheegay in Ali Duruus uu cadan ugu soo baxay duun isagoo tagay magaalada Berbera halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil Imaaraada ayna ka sii qaaday diyaarad gaar ah oo duushay magaalada caasimadda ay Muqdisho. waxa kale oo isbahaysiga qoraalkiisa uu ku cadeeyay in daqiiqado uu ku hakaday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport ee Muqdisho kadibna safarkiisa uu ku gaaray magaalada Dubai ee caasimadda isku tagay